kulanti wanaagsan qeyrta nala socota salaamullaahi calaykum idilkiinba meel kasta waa dunida ka joogtaan waa 22 maarso sanadka 2026 gobolka bariga dhexe saaka xaaladiisu ma alfana marka si guud loo eego dhibaatooyinka dhacaya Israa'iil waxay martigelinaysaa duqeymihii ugu xoogganaa iyadoo la soo warinaya qasaarihii ugu adkaa dagaalka inuu gaaray 24 saac ee ugu dambeeyay maanta weerar kala duwan oo loo adeegsaday gantaalada cruiska ah ayaa lagu soo waramayaa in ay bilaabeen inay tacadiyo xoogan geystaan 8 qofood ayaa iminka lagu soo waramayaa daqiiqado ka hor in lagu dhaawacay magaalada Tel Aviv kooxaha gurmadka degdega ah waxa ay dhulka hoostiisa ka soo faqayaan dad ay ku dumeen guryo taas oo muujinaysa waaqaca iyo xaaladdu inay isbedeshay dhinaca kale magaalada Jiliil ayaa lagu soo waramayaa in qof lagu dilay kuwa kalena lagu dhaawacay gudaha Israa'iil dhulka ay ka haysata Falastiiniyiinta taliya sare oo hadla ciidamada ilaalada kacaanka ee Jamhuuriyadda Islaamiga Iiraanna waxa uu ku dhawaaqay inay bedeleen qorshahoodii dagaalka oo wixii hadda ka dambeeya ay noqon doonaan weerar lagana baxay baan leeyahay qorshihii istiraatiijiyadeed oo hore ugu dhisnaa isdifaaca qaranka wixii hadda ka dambeeya Iiraan iyada ayaa weerar noqon doonta ayuu yiri dawladda Qatar waxay xaqiijisay dhimashada 6 qofood oo ay la dhacday diyaarad kormeer amni ku jirtay gudaha wadankeeda wadamada qaliijku mar kale waxa ay dalacayn dusha ka saareen iyo cambaareen dawladda Iiraan dalka Jamhuuriyadda Islaamiga Iiraan 6 shardi oo la yaab leh ayuu ku xiray saaka wada hadal la gala dawladda Mareykanka mid kamid ah waa in saldhigyada ku yaala dalalka Carabta guud ahaantiiba la xiro Mareykankuna oo halkaasi isaga huleelo haddii kala gobolka bariga dhexe dhammaacda rasaasta iyo gugaca sawaariiqdu ay ka taagnaan doonaan soo dhawaada qodobadaas ayaan eegayaa duhurnimadan oo aan ku faaqadayaa barnaamijkan gaarka oo aan uga hadlayno dagaalka iyo waliba marxaladihii ugu dambeeyay hadda meesha ay wax marayaan Cabdilcasiis Barrow ayaan ahay kusoo biira YouTube ka subscribe saara oo maasanteen dawladda Iiraan waxay bedelatay wajiga dagaalka saacadihii ugu dambeeyay Israa'iilna waxa ay martigelinaysaa mawjado weerar ah oo sawaariiqda ayaa dhinac kasta ugu hoobanaya qadar daqiiqadaha ka hor 10 qofood ayaa lagu dhaawacay oo inta barnaamijkan ku jirnaan 7 idinku sheegnay dhaawaca hadda 10 kale ayuu marayaa sida lagu sheegay kadib markii 2 bar oo kala duwan gantaalaha dawladda Iiraan ay ku habsadeen gudaha magaalada Tel Aviv wararku waxay tilmaamayaan in tani ay ka dhigan tahay xiisadu inay tahay mid ka sii daraysa sidii hore ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa ku dhawaaqay in ay galeen xaalad aad u adag oo dhibaatooyin badan muujin karaysa marka la fiiriyo dagaalkan iyo xiisadiisa hadda meesha ay taagan tahay dhinaca kale janaalka 14aad ee Israa'iiliyiintu waxa uu leeyahay dadka walwal iyo beegag ayaa haysta oo walaaca ugu badan waxa uu ka taagan yahay badqabka dhinaca kale warar soo baxaya waxay ku tilmaamayaan ciidamada Israa'iil in ay ku dhawaaqeen in ay howlgal adag ka wadaan oo Aasiya meelo kala duwan oo kamid ah gudaha Israa'iil yani Iiraan halkaas oo ay uga jawaabayaan weerarada kaga imaanaya dhinaca dawladda Iiraan haddii aan eego wararkii ugu dambeeyay arrimaha diblomaasiyadana taaban kara sarkaal sare oo dhinaca amniga iyo siyaasadda ah oo dawladda Iiraan ka tirsan ayaa u jawaabay hadalkii ka soo baxay madaxweynaha Mareykanka ee xalay ee ku saabsanaa 6 qodob ee Washington ay soo gudbisay si wada hadal loo galo isna waxa uu dhinaca dhigtay 6 qodob oo kale oo dawladda Iiraan muhiim u ah oo uu ku xiray wada hadal la gala nidaamka Mareykanku in uu halkaasi laga dhiri karo 6 qodob ee dawladda Iiraan ayaa marka la akhriyo waxay ka dhigan tahay in Tehran ay dareemayso dagaalka inay guushiisa gacanta ku hayso sarkaalkan oo la hadlay dad kala duwan oo ama dalal kala duwan oo si uun u raadinaya xalka waxa uu yiri dawladda Iiraan marka hore waa inay heshaa damaanad cad oo ku saabsan dagaalka inaanu dib dambe uga dhici doonin mustaqbalka qarankoodana aan lagu soo qaadi karin
qodobka labaad waxa uu ku xiray in albaabada loo laabo dhammaan saldhigyada military ee dowladda Mareykanku ay ku leedahay gobolka oo ay isaga huleelaan bariga dhexe in dalalka weerarka ku qaaday Iran ay bixiyaan magdhow qiimaheedu aad u sareeyo haddii kala dagaalka uu noqon doono mid halkiisii ka sii soconaya in la soo afjaro dhammaan dagaalada ka socda gobolka oo aanay jirin meel kale oo dowladda Mareykanka iyo Israa'iil ay weerari doonaan taas oo xitaa ay ka dhigan tahay in wax la iska yiraahdo mustaqbalka dambe ee nolosha Falastiiniyiinta in la sameeyo nidaam sharci oo cusub oo lagu maamulayo marinbiyoodka Hormuz kaas oo muhiim ay u aragto xilligan dowladda Mareykanka iyo waliba in la maxkamadeeyo oo Iran gacanta loo galiyo cid kasta oo si uga soo horjeeda dowladda oo dhinacyada Mareykanka iyo waliba Israa'iil ku agdhow kuwaasi oo loo aqoonsan doono in ay galeen khiyaano wadan mas'uulkan waxa uu sidoo kale hoosta ka xariiqay in dagaalka Iran ay ku jirto uu yahay mid qorsheysan istiraatiijiyad leh sidii loogu talagalayna u socda oo aan iminka waxba laga bedeli doonin waxa uu ku dooday in Iran ay hadda xakameyn buuxda ku hayso hawadeeda isla markaana cadawgeedu ay la kulmayaan burbur xoog leh mas'uulkan waxa uu tilmaamay in iyada la gaaray heer military oo xoog leh Iranna aysan arkin rajo xilligan dagaal looga bixi karo sidaa darteed ay isbedelayaan qaabaynta dagaalka iyo hanaanka istiraatiijiyadda ee gobolkaasi ka taagan Israa'iil sidaan idinku sheegaya qaybtii hore hal qof ayaa lagu soo waramayaa in lagu dilay qaybta sare ee magaalada Jaliil loo yaqaano dhulka Falastiiniyiinta laga qaatay qubanayaasha kooban haddii aan ku sii socda Israa'iil waxa ay sheegtay in marka hore laga cabsi qabay in hal qof uu ku geeriyooday weerar ka dhacay deegaankaasi kadibna la ogaaday qofka dhimashadiisa inay sabab u ahayd gaari lagu gubay oo madfac uu haleelay dhinaca Lebanon ka yimid ciidamada Israa'iil ayaa sidoo kale ku dhawaaqay in ay maanta dileen 10 dagaalyahan oo ka tirsan ururka xisbiga ee Lebanon ma jirto sheegasho ka madax bannaan nidaamkaas oo ilaa iyo hadda la helay isla wararkaasi haddii aan sii eego ururka xisbiga waxay ku dhawaaqeen in gantaalihii ugu badnaa maanta ay asqada uga dhigeen Israa'iil isla markaana la xaqiijiyay dhimashada dhowr qof oo kale oo Israa'iil haatan ay la kulmaysa dhibaatooyin xoog leh ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu ayaa ku dhawaaqay in wadankiisa uu galay xaalad adag oo marxaladeedu aysan saadaan lahayn iyadoo maanta wasiirkiisa amniga Itamar Ben-Gvir uu la kulmay waji gabax kadib markii dad dhibaatooyin haystay oo Dimona lagu duqeeyay isagoo booqanaya mid ka mid ah dadka halkaasi ay ku tiri dadka gacmaha dhiiga kule ee nabaabi'inaya waa adiga ee horteena dhaaf ma jirto sabab dareen noola noqon karto oo aan kugu qaabili karaynaba Israa'iil waxay maanta sidoo kale sheegtay inay gacanta ku dhigtay 4 qof oo dhalinyaro ah oo ka soo jeeda magaalada Al-Faham kuwaasi oo lagu eedeeyay inay qorsheynayaan weerar ka dhaca Israa'iil waxa lagu eedeeyay dhalinyaradaasi in ay xiriir la lahaayeen ciidamada ilaalada kacaanka ee Jamhuuriyadda Islaamiga taliyaha xarunta militariga ee Khatamul Anbiya taliska dhexe ee militariga Iran weeyaane waxa uu ku dhawaaqay in la bedelay hanaankii dagaalka ee gobolka bariga dhexe wixii 24 saac ee la soo dhaafay ka dambeeyana Iran ay noqon doonto cidda weerarka ah oo laga baxay kaartadii dagaal ee ku dhisnay difaaca warbaahintu waxay sheegtay in duqeymo Israa'iil ka dhacay lagu dilay dhowr qof oo kale oo la soo xaqiijinaya hadda geeridooda meelo kala duwan oo kamid ah waqooyiga dhulka Falastiin laga haysto ee Israa'iil ay maamulayso waxa hadda ka baxaya degniin xoogan iyadoo dadku loogu baaqay inay galaan goobo gabaada golaha iskaashiga qaliijka ee loo yaqaan GCC ayaa cambaareeyay weerarada Iran iyagoo ku tilmaamay inay bartilmaameedsanayso xarumaha tamarta shidaalka isla markaana la aqbali karin dowladda Qatar waxay xaqiijisay dhimashada 6 qof oo ay la burburtay diyaarad amni oo helicopter ahayd warar kale oo ka imaanaya Ciraaqna waxa ay leeyihiin dowladdu waxay dareemaysaa wajigaba xoog leh oo ku saabsan dagaalka iyo duqeymaha wadankooda Maxamed Shiyaac Suudaani ra'iisul wasaaraha Ciraaq waxa uu leeyahay
tani waa wejigabax aan loo dulqaadan karin xaaladda waddankeena uu wajahayo. Israa'iil waxay maanta weerartay Asfahan iyo dhowr magaalo oo kale oo bartamaha Iiraan ku yaala iyadoo qaraxyo waaweynna la soo warinayo. ciidanka waa Iiraan waxay leeyihiin nidaamyada difaaca ayaa si habsami leh